waxaan ku leenahay guddoon waad mahadsantihiin macallin Sucaad oo soo shaqaynaysay muddo 30 sano ah taasoo laga soo bilaabo 1991kii waxaanu ku guddoonsiinaa shahaado waxaanu kaaga mahad celinaynaa dadaalkaaga iyo 30 sano ee sida hagar la'aanta ee aroor walba u soo kala haysay waxaan xaggan ku guddoonsiinaa shahaado sharaf macallin Farxaan Cabdilaahi Cige oo kamid ah macallimiinta ka howlgala Soomaaliland kaasoo muddo 27 sanadood ah u shaqaynayay dadkiisa waxaan ku leenahay guddoon tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo uu maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo kamid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxaana ugu dambeyn kala saari doona xeeldheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxaa hadda soo galaya ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Beder waxa iyaguna hadda soo galaya ardayda ka socota jaamacadda Armas oo iyaguna ka qayb galaya tartanka waxa imika soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan subax wanaagsan waa maalin kale oo aad u qiimo badan oo aynu soo kalahnay in aynu bulshadeena u adeegno waa tartankii adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland oo ay maalgeliyeen banka caalamiga ah Premier Bank waxa aan filayaa idamka Ilaahay inuu noqon doono tartan xiiso badan intaana bilaabin waxaan rabaa halkan waxaan ku hayaa mashaariicdii inaan idin weydiiyo dareenkiina iyo maxaa filaysaan ku soo dhawaada waan doonahay magacaygu waa Maxamed waxa xagan igu helinaya dalqiis aan marwa oo ka tirsan teamkayga kuwaasoo ka socda jaamacadda Armas waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galno tartanka adeega bulshada qabanay Premier Bank maasantiin waan doonahay aad baad maasan tahay magacaygu waa Cabdi Jaamac waxa igu helinayo igula jira kooxda Naciimo iyo Muhiim Naciimo Cabdiraxmaan iyo Muhiim aad bayaan ugu faraxsanahay anagoo ka socno jaamacadda Beder inaan ku qayb galno tartanka arrimaha bulshada ee uu maalgelinayo bangiga Premier Bank aad iyo aad baa maasantihiin halkan waxaan ku hayaa laba mashruuc oo saaka aad ku hawlgalaysaan maxaa filaysaan wax khayr qaba insha Allah khayr barashayna insha Allah waayahay waxa aan ku horeysiin doonaa kooxda Armas 2 oo mashruucooda marka hore loo wareegi doona kadibna waxa ku xigi doona bahda Beder iyaguna loo wareegi doona waad furaysaan isinka u qabta wixii idin ka soo baxa bulshada la wadaaga annagoo ka soconna jaamacadda Armas waxaanu soo kala kulanay waan qaadanay la siiyey maamuus oo ka farxi macallin soo saaray jiilal badan oo bulshadiisa wax taray annagoo ah kooxda ka socota jaamacadda Beder kiiskaanu helay maanta ee taayinaanu xalilay waxa uu noqon doonaa maamuus oo ka farxi macallin soo saaray jiilal fara badan oo bulshadiisa wax taray aad iyo aad baa u mahadsantihiin guuliyo gobonnimaan idin rajaynayaa waxaa tartamayaasha loo sheegay inay maamuusaan oo ay ka farxiyaan macallin soo saaray jiilal fara badan oo bulshadiisa wax taray waxaana hadda ay gudagelayaan sidii hawsha ay u qorshayn lahaayeen waxa ku weyn qaban horta waxa weyn magaca team kala baxna seen isku raacnay bade waxaan la baxnay taageero oo kaas magaceenu cidda dadka qabta magac kala wanaagsan may taageero maadaama aynu dadun caawinayno ama maamuusayno oo maxaa la dhahaa kiiskeenu yahay macallin it's okay taageero ku raacdo kale maadaama macallin la maamusay ay tahay qof waxayna soo baray muddo badan inaynu sharfino waxayna wanaagsan inaynu magac taageerana baxno soo I agree kiiskeeni kulay waynu qaadanay kiiskani noo dhiibina waa kiis maamusid macallin jiilal badan iyo faacyo badan soo shaqeeyay maamusno se wax laynoogu baahan yahay intaa ka hor inaynu magac la baxno waxaad u aragtaan inaynu magac la baxno
waxaynu magac ka dhiganaa kolley magacyo badan oo inagu soo baxaya way jiraan sida hiil bulsho kale ka waran sidaad aragtaa adiga ama haddaynu ka dhigno samawade oo kale samawaday ama miskiin kalkaal oo kale maxay idin la tahay idinka inaynu ka dhiganno magaca samawada insha Allah u deysanayna ma igu raacsan ha sax weeyaan samawaday isaga ka gaaban waxaan guddoonaa inaynu haddana iska dhex dooranno guddoomiye inoo hadla wax kasta ama team leader si loo yaqaano ka iyaynu ka dhiganaa anigu waxaan odhan lahaa laga dhigo inanka keliya inagu dhex jira maxamed maadaama isagu liidarka uu noqon karo anu isagaan dooray adiguna si weyn baan kugu raacay sax weeyaa dad ku raacdeen haddaba ka noqosha ma jirto guddoomiyadu aragtaa inaynu ka dhigano guddoomiye waxaan ka dhigaynaa muhiim iyaduna laakiin ra'yigeeda waan weydiinaynaa status uu leeyahay laakiin عاد فتح بمدي سنين قدومي صح way sidaasaynu ku howlgeli doonaa insha Allah waxaan qodobkan saddexaad ka hadlaynaa waxa weeye sidee horta kiiskan maamuuskeeli noo dhiibay sidee maxaynu ka bilaan garaysan karnaa marka qorshaysanayno si aanu sharfi lahayn macallin jilal badan soo saaray oo aynu maamuusaleen waxaan rajaynaynaa insha Allah in hawsheena sida ugu wanaagsan aynu u qabanno waxaan isku dayaynaa horta markastoo in kiiskeenu sida uu yahay ay maxay ahaydey u abaabulno waa markastoo waqtiguna inaga soo yaraanayo sidoo kale hal maxaa la dardaaran bayna siinaya ka aasatiin ahaan wati qaacida ahayd la odhan jiray man caasha linafsihi maata waxiidan ومن عاش لغيره مات لنفسه qofkii kaligiisa noolaada kaligii buu dhintaa qofkii isku daya inuu dadka kale u noolaadana shahiidnimo ku dhintaa marka halkaas in kaga tageynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaynu kiiska sida ugu haboon ka soo baxno sax qorshahaynu waxaanu ka bilaabaynaa inaynu galno baadi goobkii macallinka oo raadino fara u qalma kiiskan inoo dhigay way adag tahay macallin in badan shaqeynaya horta oo maxay heeday jiilal badan soo saaray oo maxaa la yiraahdaa macallinka ugu wanaagsanaa sidaan ku helnaa way adag tahay waqtigan haysanana uu kooban yahay sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay maxaa la yiraahdaa waqtigeena isku beego falanqayn iyo doodeer kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sida ay hawsha u galayaan waxaana hadda ay u anbabaxayaan sida ay u qaban lahaayeen hawsha loo diray hadda kooxda ka socotay jaamacadda Beder ayaa raadinaya macallinkii ku habboonaa ee adeega ay u qaban lahaayeen waxaana baadigoob ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen waxa iyaguna baadigoob ku jira tartamayaasha ka socday jaamacadda Armas oo iyaguna raadinaya macallinkii ku habboonaa ee adeega ay u qaban lahaayeen tartamayaasha ka socday jaamacadda Beder ayaa iyagu helay macallinkii ay hawsha u qaban lahaayeen sidoo kale tartamayaasha ka socday jaamacadda Armas ayaa iyaguna helay macallinkii ay hawsha u qaban lahaayeen anagoo ah groupka labaad ee jaamacadda Beder ee u tartamaya tartanka arrimaha bulshada ee uu maalgelinayo bangiga Premier Bank waxaanu ku guuleysanay inaanu helno qofkii u qalmayay in la maamuuso oo loo mahad celiyo qofka uu qalmay ee aanu isniri uu yahay qofka u qalmayay ee ugu wanaagsan ee ah macallin soo shaqeynayay muddo ka badan 30 sano soo shaqeynay ilaa laga soo bilaabo 1990kii waa macallin Sucaad Cabdiraxmaan Xaaji isagoo programka noo diray maanta oo ahaa inaan soo maamusno macallimiinta wadanka ka hawlgasha kuwaasoo soo saaray ama waxbaray jiilal badan oo ilaa jilal badan oo istaba joogay ilaa in muddo ah macallin soo ahaa markaan soo wareegnay iskuulo badan soo marnay waxaan aakhirkii la kulannay macallin Farxaan Cabdilaahi Cige oo ka hawlgala iskuulka hoose dhexe Axmed Guri markani tartamayaasha ka socda jaamacadda Beder ayaa bilaabay sidii ay u maamuusi lahaayeen isla markaasina adeega bulsho ee ay wadaan ay ugu qaban lahaayeen macallinkani geesta kalena kooxda ka socotay jaamacadda Armas ayaa iyaguna bilaabay inay gudagalaan hawlahoodii
oo ay u adeegaan macallinkani jiilasha faraha badan wax soo baray. waxaanu guddoonsiin doonaa maamuus aad aanu filayno in aanu qiimaheega waxba aanu uga dhigmin, balse in yar oo mahadnaqa keliyata weeyaan. waxaanu hubnaa inay tahay qofka ugu mudan ee ay tahay in la maamuuso, maadaama 30 sano qarankeyga usoo shaqaynaysay, jiilal iyo facyo fara badanna ay soo saartay, dad fara badan oo wax noqdayna ayadu wax bartay. waxaanu hooye kaa doonaynaa macalin Sucaad inaad naga guddoonto waa qadar dahaba oo aanu kugu talagalnay, oo aanu ku leenahay aad ayaad ugu mahadsan tahay adeega bulshada aad u qabanaysay. waan inaga aqbalay, waanad ku mahadsan tihiin. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa kuwa ku faa'iideysay intaas iyo ku ka badanba. daawayo aad baad mahadsan tahay. muddo badan baad wax soo dhigaysay, in yar inaad si yar u gudmada noogu sheegto 30 sano aad soo dhigaysay aad dadka iyo qaranka aad u shaqaynaysay. dee maxaa arday baan la soo kulmay ku wanaagsan ku xun cid walba la isla kulmaa. intaba uu dul baan ku qaatay, waan ku soo baxay, way wada faa'iideysaa. kuwa ayaa kuwa ka waaweyn baan wax soo baray. kolka alxamdulillah saasaan ahay. waxaanu ku guddoonsiinaa shahaado. waxaanu kaaga mahad celinaynaa dadaalkaaga iyo 30 sano ee sida hagar la'aanta ee aroor walba u soo kala haysay. waxa kale oo loo sheegay aroorta qofka ugu horeeyay yimaado dugsiga inaatay. waxaanu ilaahay ka baryaynaa in abaalkaagu janno u goynayaa, in ilaahay abaalkaaga janno ka dhigo. waa macallimad muddo badan wax ka soo dhigaysay iskuulkan, arday anagana nalaale kuwa naga sii waaweyn wax u dhigaysay oo in badan baraka ahayd Somaliland, gaar ahaan iskuulkan Gacmo Dheere. والله سعاد waxaan ku tilmaami karaa uun maamada dugsiga, sababtoo muddada inta leeg markay ka dhigaysay cid kale oo la jiil ah oo maanta iskuulkii joogtaa waa ayna jirin. annagana aanu nahay ardaydii wax ka baratay maamo Sucaad. waxaan idinka mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad u soo maamusteen maamo Sucaad. bismillaahir rahmaanir rahiim. anagoo warka taageero ee ka socona jaamacadda Armas, waxaan xaggan ku guddoonsiinaa shahaado sharaf ama shahaado maamuuseed kulba sida loo yaqaano macalin Farxaan Cabdilaahi Cige oo ka mid ah macallimiinta ka howlgala Somaliland, kaasoo muddo 27 sanadood u shaqaynayay dadkiisa oo xooggiisa iyo maalkiisaba ugu sadaqaynayay waddankiisa. waxaan ku leenahay guddoon. waad mahadsantihiin. dhalinyaradan waxaan ku Armas ka socota aad baan ugu mahadnaqayaa, waanan idin salaamayaa, waanan idinka guddoomiyay shahaadadan. annagoo ah kooxdii labaad ee ka socotay jaamacadda Beder oo magacyadeedu ay kala yihiin Cabdifitaax Jaamac, Naciima iyo Muhiim, waxaanu soo gabagabaynay tartankii arrimaha bulshada oo aanu xilligii loogu talagalay aanu ku soo gabagabaynay. tartankayga oo aanu ku tartamaynay maamuusida macallin soo saaray jiilal fara badan oo muddo soo shaqaynayay oo facyo fara badan wax baray. waxaanu ugu dambeyntii helnay macallin Sucaad Cabdiraxmaan Xaaji Nuur oo ka mid ah macallimiinta dhiga dugsiga Gacmo Dheere ee hoose dhexe. macallin Sucaad oo soo shaqaynaysay muddo 30 sano ah, taasoo laga soo bilaabo 1991 iyadoo dugsiga macallimiintii lagu bilaabay ahayd goor uu dugsigu burbursanaa oo lagu dhigan jiray geed hoostii. aanu markii aanu eegnay kategoriyo fara badan oo ay ka mid yihiin inay tahay qofka soo shaqaynayay muddada intaa leeg ee 30 sano, sidoo kale ah qof da'a oo da'deedu ay imaka aad u sii weynaatay, sidoo kale ah qof ay ka go'an tahay in shaqada ay haysay macallinimadu oo jecel oo ay ka go'an tahay inay soo saarto facyo kala fara badan oo bulshada wax tara. waxa ay markii aanu booqanay dugsigu ay dhammaan ka mahad sheegteen inay tahay macallinka ugu wanaagsan ilaa hadda oo ay dhigaysay 30 sano, haddana ay tahay macallinka ugu hor yimaada ee iskuulka qofka ugu horeeya yimaada, iyadoo ay qof ay ka go'an tahay inay soo saarto jiil wax bartay oo barbaarsan. ugu horeyntii waxaanu isku daynay inaanu raadino waxaanu macallinka ku maamuusno oo u qalma, walow maamuuskaygu uu yahay wax kooban, balse waxaanu ugu mahadnaqno. waxaanu judhiiba nagu soo dhacday in waxa ugu
doorka weyn ee aanu ku maamuusi karnaa maclimadda inuu yahay inaanu siino dahab kaasoo ah wax u qalma amba wax u dhigma dadaalkii ay qabanaysay intaa kadib waxaanu isku daynay in aanu raadino waxyaabo kale oo hadiyad ah oo ka farxin kara taasoo hadiyad ah waxaanu u sheegnay in hadiyadaha aanu siinay aanay ahayn kuwo boqolkiiba boqol wada abaalkaygii wada kafaynaya balse keliyata aanu mahadnaq aanu ugu nimid way naga gudoontay si wanaagsanna way noo soo dhaweysay dhammaan hadiyadihii aanu siinay iyo sidoo kale maamuuskii dahabka ahaa ee aanu guddoonsiinay way naga guddoontay mashruucayaguna waxaa ku soo dhammaaday si guula waxaanaanu filaynaa in qofkii aanu doornay uu ahaa qofkii ugu mudnaa ee la siin kari lahaa maadaama maclimaddaasi ay tahay maclimad da'weyn oo 30 sano soo shaqaynaysay waxaa jiray caqabado na soo wajahay intii aanu ku jirnay inaanu helno qofkii mutaystay ee ay ahayd in la guddoonsiiyo maamuuska ugu mudan caqabada aan ugu weynayna haystayna waxay ahayd inaanu helno qofkii ugu mudnaa laga soo bilaabo ilaa 8 subaxnimo ilaa hadda oo ay tahay 6 habeenimo waxaanu raadinaynay qofka ugu mudan waxa intaas oo dhan naga qaatayna waxa uu ahaa kategoriyada aanu kala dhiganay oo aanu ku kala xulanaynay macallimiinta aanu aragnay anagoo la kulanay macallimiin dhowr ah in aanu si kala xulanno qofkii ugu mudnaana waxa uu noqday macallimad Sucaad Cabdiraxmaan Xaaji sababta ay uga mutaysatay macallimad Sucaad Cabdiraxmaan Xaaji macallimiinta kale ee aanu la kulanay maanta waxa weeyaan inay tahay markii hore hooyo barbaarin lagu og yahay sidoo kale inay tahay qof ruux dumar ah oo facay soo saartay aanu la mid ahayn macallimiinta kale sababtoo ah iyadu waxa ay dheer tahay naxariis iyo barbaarin iyo daryeel iyo danayn iyo dhibirsanaan fara badan maadaama ay tahay qof hooyo oo dumar ah sababta aanu ku xulanayno waa taa iyo in 30 sano ay qof kasta oo ay wax u dhigtay kaliya taana wax u dhiginay ay soo barbaarisay oo akhlaaqdiisa iyo asluubtiisa iyo edabtiisa iyo anshaxa oo bulshada la dhexgalaya ay hagaajisay anagoo ah teamkii labaad ee ka socday jaamacadda Armas kana qayb galay tartankii uu qabanayay Premium Bank marka mashruuca haddaan idin sheegno number 1 wuxuu ahaa inaanu macallin jiilal badan soo saaray ama dad badan soo saaray oo soo hirgeliya waxbarashadooda inaanu ku maamuusno sharafno ma garanaysaa u mahadnaqno dadaalkii inoogu jiray intaas oo sano marka waxaanu isku daynaa inaan hawl galo planningkii sidii hawshan aan u qaban lahayn aan qorshaheeda degno markaan qorshaheeda degnay waxaan isku daynay inaan dhowr school aan booqano aanu assessmentiga iyaga aan ku ballaarino ma garanaysaa marka dhowrkii school aan booqanay ugu yaraan waxaan booqanay 5 school iskuulna waxaan ka booqanay mid kasta waxaan ka wareysanay dhowr qof adigu ugu yaraan totalka hadaynu soo koobno 10 macallin ayaanu wareysanay 10kii macallin ayaanu mid kala soo dhaxbaxnay kii aanu isniri perfect candidate buu idin yahay ama isaga mutaysta mashruuca in loo hubiyo oo la maamuuso marka maalinka markaan soo baxnay xaalkiisa baan wareysanay isagii baan interview ka qaadnay assessment baan u bilownay marka assessmentiga after assessmentiga waxa noo soo baxday macallinkani inuu adigu 30 sano wax ku dhow wax barayay dad badan wax soo baray dad laga yaabo in maanta xil u hayaan wadanka inuu wax soo baray marka waxaan isku daynay inaan hawshiisa guda galo hawshiisana waxaan ka bilownay in aanu wareysano ku niraahno maxaa income-ku xageebu ka soo marka wuxuu noo sheegay in dakhliga iskuulka u soo galay inuu dukaan yar u raacsan yahay laakiin dukaanka inuu meel sare gaarsiin kari waayay oo wax yar ku bilowday marka waxaan isna yiri ganacsigiisaas u xoojiya maadaama dukaan xaafadeed uu ahaa xaafadeedkana aan laga maarmin oo wax uga soo gali karo dheeraada waxaan horta tagnay xaafadiisii dukaankii baan soo eegnay meeshii baan iska soo eegnay dukaanku wax kasta u baahan yahay iyagu wax kasta u baahan yihiin markaan inta soo qoranay soo list garaynay ayaan suuqi tagnay suuqi markaan tagnay waxaan u soo iibinay dukaanku wuxuu u baahnaa alaabihii yaryara bagaashkii wax kasta waxaan u soo iibinay kale raashinkoodii ay isku dabari lahaayeen oo ka gaara waxaan kaloo u soo iibinay khudradii
dukaanku u baahnaa khudaartii oo kale way iibinayeen marka khudradiina waan u soo iibinay inta markaan u soo iibinay waxaan kaloo u soo kale maamuus bay arinku ahaydoo ka adigu wax kasta waan u dhamaystanay macalinka inaan si fiican u maamuusno hawshiisana waan ku wareejinay dukaankii waan u soo dhamaystanay shahaadadii waan siinay si fiican buu nooga gudoomay wuuna noo mahadnaqay waxaan kaloo go'aansanay inaan bagaashka ugu darno raashinkii rabadaanta ay ku dhaafi lahaayeen marka raashinka laftigiisana waan u raacino oo dee waan u soo iibinay isagana waxaa hadda madasha uu ka dhacaya tartanku soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaa sidoo kale iyaguna hadda soo gelaya xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada xamse cumar ku joog waa agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland xamse waa samafale ka shaqeynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaan kuuliyadda cilmiga adeega bulshada waa qoraaga buuga dhacda iyo dhugasho laga qoray xaaladaha bulshada Axmed Nuur Muuse waa aqoon-yahan ku takhasusay cilmiga adeega bulshada kana diyaariyay shahaadooyin kala duwan waa mid ka mid ah asaasayaashii iyo hormuudkii hore ee kuuliyadda cilmiga adeega bulshada ee jaamacadda Hargeysa waa asaasaha iyo gudoomiyaha jaamacadda Mandeel ee magaalada Hargeysa Sheekh Xamse Xabiib Xuseen waa mid ka mid ah culimada Soomaaliland oo wax ka dhiga masaajidada Hargeysa waa tababare iyo aqoon-yahan bixiya tababaro la xiriira islaamka iyo dhaqaalaha waa qoraaga buuga 100 mashruuc iyo mashruuc oo ka hadlaya saamaynta iyo hirgelinta fikrada ganacsi oo midho dhala Fuad Cumar Yare waa samafale iyo fanaan caan oo ka shaqeeya adeega bulshada in ka badan 7 sano waa asaasaha iyo hogaamiyaha ururka samafalka ee Fuad Foundation oo ka howlgala dalka iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka ee Soomaalidu ay degto waxaa loo yeedhayaa tartamayaashan 2 kooxood waxaana guddidu ay su'aalo ka weydiin doonaan waxyaabaha ay soo qabteen markan waxaan rabaa inaan u yeedho 2 kooxood ee Badr University Group 2 iyo Armas Group 2 ila soo dhaweeya 2 kooxood ee Badr iyo Armas marka hore soo dhawaada marka labaad waxay ka mid ahaayeen gruubada sida siman u tartamayay 2 hablood iyo wiil iyo 2 hablood iyo wiil sidoo kale labadan kooxood waxay kaga doonayeen dhammaan kooxihii tartamay shaqada loo diray caawin ma ahayn shaqo maamuusida baa loo diray waxa loo diray inay maamuusaan oo ay karaameeyaan mid ka mid ah adeegayaasha bulsho waxa loo diray inay helaan macallin bulshadiisa u adeegayay muddo dheer soo saaray jiilal badan isla jeerkaasna ay maamuusaan oo ay karaameeyaan aad iyo aad ba umahadsantihiin labadiina kooxoodba shaqaada weyn baa qabateen maamuuska macallinka maamusteen waxaynu su'aalahaynu geli doonaa marka ugu horeysa waxaan ku bilaabi doonaa macallin Axmed Nuur Muuse soo dhow macallin soo maasantahay assalaamu calaykum hawl wanaagsan baa qabateen sida Xamse sheegay ugu horreyn waxaan doonayaa in shaqada marka koox la yahay waa la wadaagaarta shaqada ayaan la kala boobin qolayaanay shaqada isku koobin waxaan wax barasho qof kasta wax la doonayo inuu ka faa'iideysto taas waa iga talo talabaad su'aasheeda koobaad midkiina miyuu ka baxay iskuulkan labadan iskuul gacmo dheere iyo Axmed Guri qof ka baxay iskuulka meesha marayay miyuu jiraa qof ka baxay iskuulkan macallinka lagu maamus idinka qof miyuu ku jiraa iskuulka maya qof dhigtay kuma jiro iskuulka hore uga soo baxay kuma jiro maxaa markaa keenay inaad iskuulka doorataan qolo kastaba labada iskuul ay kala qaateen marka macallinka aan iskuul ahaan teen haddana macallin ahaan u daadega iskuulkan sababtaan u dooran horta waxa weeye waa iskuulku xaafadaan wuxuu ku yaalla Cakaara ama Axmed Dhagax iskuulkan waxaa jaar la ah ADB-ga Cakaara kaasoo ay degan sidaan wada ognahay dad aan income-kooda aan u sarreynin ama dabaqada hoose lagu tiriyo soo markaa kulley macallimiinta ka howlgeli jiray ama xaadirkanba ka howlgalay yihiin macallimiin aan wax laga yaabo mushaharoodkooda aan xataa dawladdu sometimes ay kala soo reegto ama wax gunaa lahayn so reason ka ku doorno waxa horta inuu u dhow yahay iskuulku meel ay DB oo
dadka agagaarkiisa degan dabaqada hoose. imise iskuul baad tagteen markaa? waxaan tagnay 5 iskuul. iyadan si guud dugsiga aanu macalinka ka maamusnay waxa weeyaan horta dugsiyo dhowra ayaanu marnay sababta aanu ku sii dooranayna waxay ahaayeen dugsiyadan aanu dooranay waa dugsiyo hoose dhexe oo dawliya waxaanu inta badan muhiimadda saarayna ama kriteeriyada aanu xulanay aanu ka duulaynay ahayd inaanu booqanno dugsiyo hoose dhexe sababtuna ay ahayd way ka faac weyn yihiin amba way ka waqti badan yihiin inta ay jireen marka dalkeena la eego dugsiyada dawliga ee hoose dhexe dugsiyada kale si gaarana macalimadda waxaanu ku sii dooranay kriteeriyadaanu dhiganay waxaa ka mid ahaa qof ugu weynaa in qofku 20 sano soo shaqaynayay in uu yahay dugsi dawliya in qofku yahay qof ilaa hadda shaqeeya balse wixii oo dhanba waxay noqotay qofka buuxiyay welibana ka batay maadaama ay ahayd macallin soo shaqaynay ilaa 1990kii ilaa haddana shaqeeya ilaa haddana qofka ugu mudan ee iskuulka jooga ee xilliga ugu horeeyay yimaada sidoo kalena qof faacyo badan soo saaray oo dad badan wax u dhigay barbaariyina sababtan macallin ku dooranay wuxuu horta macallinku inuu ka mid ahaa macallimiintii ugu muddada dheereed iskuulka joogtay oo 27 sanadood oo waliba noo soo sheegay 20kii sanadood u dambeysay inuu iskuulka ka howlgeli jiray sababahan ku sii dooranay waxa ka mid iskuulka afterkiisa dhowr macallin oo kale aan ka wareysanay oo ilaa ay isku age yihiin macallinku wuxuu jiraa 60 sababtan ku sii dooranay waxay in oo macallinkan uu markaan assessment-kaygan macallinkii sii wareysanay waxa noo soo baxday in labada vulnerability-gooda ay ka sareeyaan macallinkan aan dooran inuu macallimiinta kale ka sareeyo laakiin macallin marka laga hadlay saameyntiisu waa inuu cid soo saaro ma aha inuu muddo iskuul ka shaqeynayay macallinku 40 sano soo joogi karaa saameyntiisuna waa yaraan kartaa marka labadiina waxa leedahay muddadu joogo ma qiimaysan laakiin wixii maxsuulkii uu soo saaray intaasoo arday buu soo saaro anfacday intaasoo wax buu sameeyey intaasoo iskuul buu dhisay intaasoo meelood buu wax ka baray maydan qaadan waxa qaadateeno qura inta sano uu shaqaynayay ee iskuul ka shaqaynayay waa faalo guud laakiin waxay macallin saameyn sameeyey inay maamustaan annagu haddaan ku horeynay su-aasha ahayd maxay heeday u sheegi weydeen macallinka maadaama oo laydin dhahay jiilal badan inuu soo saaray baa muhiim ahayd kolley horta waxaan raadinaynay xog baheed macallinka aan raadinaynina macallin aan aqoon u lahayn ma ahayn sidaa darteed macallinku iyo maamuluhuba waxay noo sheegeen inuu yahay welibana ay soo saareen macallimiin dad wasiire ah sidaa darteed maadaama dad wasiire ah oo dawladda u shaqeeya ay soo saartay waxa halkaan nooga caddaatay inay jiilal badan soo saartay inuu iskuulka in badan joogay waxaanu ku qiimeynay inuu soo saaray dad badan oo siduu isagu noo sheegay yidhaahday waa dad xildhibaan ah dawladda xil ka haya bulshadoodana horumar gaadhsiiyey marka taasna waanu ku qiimeynay su-aashayda waxbaa iga yar horeeya aniga waxaan u mahadnaqayaa macallimadayda Sucaad Cabdiraxmaan Xaaji Nuur aniga macallin yahay markaa loo socday markaa way ka jawaabeen su-aashii macallinka waa la helaan u malaynayaa mar haddii inteena halkan fadhidaba ay qaar ka mida macallimadu ahayd marka waan salaamayaa macallimadda insha allah aadna waan ugu ducaynayaa su-aasha anigu idweydiinaya waxa weeyaan baaritaanka xagaad ka bilowdeen idinku baa sheekaystay oo yidhi iskuulkaynu weerarnaa mise wasaarad baad ka bilowdeen mise meelaha ay isugu yimaadaan community-ga waxbarashadu baad ka bilowdeen intaas maan idweydiinaya anigu waxyaabaanu ku qiimeynayna waxay ahayd maanta macallin kasta dee uu soo saaraa jiilal badan oo bulshada wax ka sameeya laakiinse waxaan nidhi yaa maamuus badan haddii la eego private iyo dawlina macallimiinta jiilalka badan ama dadka bulshada saameynta kula soo saara waa dawli sidoo kale taasoo keliyata kumaanan qiimeyn yeenu ka farxin karna macallin kasta waa laga farxin karaa laakiin waxaanu eegnay inuu macallinkan yacni macallimiinta dawladii privateka ay kuwa dawligii ka vulnerable badan yihiin kuwa privateka waayo privateka waxaa la qaadaa ardayda bisha waxaa laga qaadaa dee lacag badan xagga kuwa dawladda ama shilin laga qaada ama aan laga qaadin mararka qaar lacag oo dawladda ay wax ka sugaan marka waxaan nidhi maamuus iyo farxad iyo sharaf intaba iskugu dara macallimiinta dawliga qiimeynta ku sameynay waxay ahayd waxaanu ka bilownay inaanu tagno dugsiyada dawliga ah ee hoose dhexe marka iyaga ayay taallaa xogta rasmiga aynu heli karno wasaarad maanaan tegin balse iskuullada oo ah halka dadku ay ka shaqeeyaan ayaanu toos u abaarnay markan guddida garsoorka barnaamijka ayaa qiimeyn ku samaynaya tartamayaasha labada kooxood isla markaasina ku dhawaaqaya cidda guulaysatay kolay waxaan nahay dad
bulsho wax u qabtay ma garanaysaa marka meesha guuldaro ma taalo marka kolley qof baa noloshiisa change ku sameeyna ma garanaysaa oo daanu caawina at least one day na haatay inuu farxad dareemo inuu isu arko inuu samada marayo ma garanaysaa taasina wax loo dhigan jiray marka guuldaro meesha ma taalo anigu waan guuleysanay internal ahaan haddii teamkayga guuleystaana dee keep going shaqada halka ka wada haddaan anigu guuleysanana dee annaga laftayga keep going kolley anaga experience faa'iidnay baan odhan karnaa markaa meesha guuldaro ma taalo haddii iyagu kiiskaa loo diray ay ku soo baxaana waan hambalyaynaynaa haddaan anagu kusoo baxnayna nafteyda isku hambalya waa mahadsantihin hawsha way fudaydseeno mar haddaaba dee halkaasii istaagteen way fiican tahay qolada hawsha sii wada sunbayn markaa imika soo saarayna nambaradii markaan isku geennay beder kooxda beder waxay heleen 29 halka kooxda admaas iyaguna macalinka maamuusi ay heleen 97 wax badan la isma dheera mas-uuliyad baa la isdheeriyey oo kooxda admaas hawshii bay sii wadayaan oo mas-uuliyaddii iyo culayskii saarnaa bay sii wadayaan halka idinku hawsha oo qabateenna dee khayrkeedana waa leedihin hawshana waa sii wadaysaan insha allah marka hambalyo admaas Premier Wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyay Premier Bank waxa uu kuu fududaynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bankigu leeyahay adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kuugu leeyahay waad iska diiwaangelin kartaa adigoon akoon ku lahayn Premier Bank haddii aad ku leedahay akoonkaaga ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxa ay ku bixin kartaa walletkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash garaynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercard-ka ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa haddii uu ka lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa Wall Remit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhaxelaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp-kaaga iyo email-kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka samayso Premier Wallet la soo deg hadda application-ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba